magaalada Marko waa mid ka mid ah magaalooyinka xeebaha dhaca ee Soomaaliya kuwooda taariikhda fog leh waxay leedahay xadaarad aad u fog oo u laabanaysa bilowga taariikhda miilaadiga waxay ka mid tahay magaalooyinka xudunta u ah ilbaxnimadii hore ee xeebaha Soomaaliya faafinta diinta Islaamka la dagaalanka gumaysiga iyo xiriiradii ganacsiga dibadda ee dalalka dhow iyo kuwa fogba magaalada Marka waa magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Hoose waxay caasimadda Muqdisho u jirtaa qiyaas dhan 90 kiiloomitir waxay ku taallaa deegaan qurux badan oo u dhow dhulbeereedka webiga Shabeelle juqraafi ahaan waa magaalo aad u qurux badan waxayna leedahay dhaqamo iyo raadad taariikheed oo u laabanaya waqtiyo fog muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonaa taariikhda ay leedahay magaaladani magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina oo Abari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta taariikhdu si rasmi ah uma diiwaan gelin xilliga rasmiga ah ee la aasaasay magaalada Marko sida xogaha kooban ee sooyaalka magaalada laga qoray ay dhigayaan magaalada Marko ayaa ku bilaabatay ganacsi dhex maray dadkii deganaa tuulooyinka xeebaha saaran ee ku xeeran magaalada iyo ganacsatadii agabka kala duwan keeni jirtay xeebaha Griigii hore ayaa marka u yaqaanay magaca Esina diiwaanada taariikheed ee ay keydiyeen badmareennadii Griiga qarnigii koobaad ee miilaadiga gaar ahaan buugga ugu faca weyn ee loo yaqaano Breblas ayaa marka ku tilmaamay mid ka mid ah dekedaha ganacsi ee ugu muhiimsan bariga Afrika Marko waxay xiriir ganacsi la lahayd Roomaanka Griigii hore faraacinadii saldanadihii hore ee Carabta Hindiya iyo Shiinaha qoraaga iyo taariikhyahanka Ibnu Saciid oo ahaa dhulmareen taariikhda iyo juqraafiga diraasaya ayaa qoraallo u diiwaan geliyey sanadkii 1154 miilaadiga marka ku sheegay inay ahayd deegaan xeebeed u dhow webi iyo dhulbeereed kuna yaala meel u dhaxaysa xeebaha Carabta iyo Zanzibar waxa uu qoraaladiisa ku sheegay in Marko ay ahayd xarun ganacsi la leh dalal kala duwan shixnado ganacsina ay ka yimaadaan qoraaga buugga Mucjamul Buldaan Yaqut al-Hamawi oo ahaa dhulmareen Carbeed ayaa buuggiisa oo uu ka qoray dhulalkii uu socdaalka ku maray oo Marko ay ka mid ahayd wuxuu ku sheegay in Marko ay ahayd xeeb ay degan yihiin berber madow oo uu la jeeday Soomaalida waana magaca inta badan Carabtii hore ay u yaqaaneen Soomaalida markii ay burbureen saldanadihii qadiimiga ahaa ee Yemen ka talin jiray dadka reer Yemenna ay bilaabeen in ay ka haajiraan dhulkooda marka waxay ka mid ahayd dhulalkii ay soo gaareen ganacsatadii Yemen ee doonayay in ay helaan dhulal ay nolol kale ka abuurtaan waxa ugu caansanaa qoyskii Fakhruddin oo asalkoodu Carab ahaa ee Muqdisho ka dhisay saldanadii Muqdisho saldanadan ayaa magaalooyin ay ka mid tahay Marko gaarsiiyey ilbaxnimo aad u ballaaran waqtigii ay saldanadan jirtay Marko waxay ahayd goob cilmiga diinta si aad ah looga barto ganacsiga iyo xiriirada caalamiga ah ayaa aad u sareeyay magaaladuna waqtigan waxay lahayd wax soo saar oo ugu caansanaa dharka alindiga oo waqtiga loo yaqaanay dharka xeebaha Banaadir markii saldanadii Muqdisho dhammaadkii qarnigii 13aad ay ku milantay xukunkii saldanadii Ujuuraanka oo xilliga ku fidaysay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xaakimka ama hogaamiyaha Marka ayaa xilligan lagu yeeri jiray amiirka saldanadda muddo ku dhow 4 qarni ayaana saldanadii Ujuuraanku ka talinaysay magaalada Marka waxayna burburtay qarnigii 17aad kadib markii guluf ay ku soo qaadeen qabaa'ilada deegaanadii ay saldanadu ka talinaysay kadibna waxa xukunka magaalada qabsaday saldanadii Galadiga oo xarunteedu u ahayd magaalada Afgooye waxaana dib u bilowday xiriiradii ganacsi ee ka dhaxeeyay dalalka fogfog iyo Marka saldanadan ayaana talada haysay ilaa ugu dambeyn iyadana ay dagaal kala hor yimaadeen dadka deegaanku maamulkii saldanadanna waa laga saaray Marko dhowr duulaan oo ay saldanadu ku doonaysay in ay Marka ku qabsato ayaa guuldaraystay sidaasi ayayna ku burburtay saldanadii Galadiga oo sababsatay dagaaladii Marka dhammaadkii qarnigii 19aad markii gumaystihii Talyaanigu isku fidinayay dhulka Soomaaliyeed dadka reer Marka ayaa dagaal adag kala hortagay doomihii ay saarnaayeen askartii Talyaaniga ee doonayay in ay soo galaan magaalada waqti ku dhow 2 sano oo ah muddadii u dhaxaysay 1888 iyo 1890 ayay shacabkii reer Marka dagaal ku hortaagnaayeen in Talyaanigu soo galo magaaladooda dagaalkan waxaa horkacayay odayada deegaanka macallimiinta dugsiyada Quraanka iyo culimadii kale ee magaalada ugu dambeyn sanadkii 1890 ayuu Talyaanigu awood u helay inuu Marka soo galo kadib markii uu go'doon geliyay magaalada sidoo kalena
ula wareegay xeebaha u dhow, balse Talyaanigu uu awoodi waayey inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyadii gumaysidiidka ahaa ee reer Marko oo meeshoodii ka sii socday. dhowr qof oo maamulkii Talyaanigu uu Marka ka dhisay madax ka ahaa ayaa magaalada lagu dhex dilay. qabaa'ilkii deganaa Marko ayaa Talyaaniga u diiday inuu isku fidiyo deegaanada ka baxsan xeebaha. xilliyo badanna waxaa ka dhacay dagaallo si toos ah fooda la isugu daray. Talyaaniga oo aad uga baqayay in ay gobollada koonfureed ka bilowdaan kooxo gumaysidiid la mid ah kuwii daraawiishta ayaa dejiyey istaraatiijiyad laba arrimood xoogga saaraysa. midda koowaad ayaa ahayd in la go'doomiyo reer Marko oo aad ugu tiirsanaa ganacsiga badda. midda labaadna in laga hortago in ay wax xiriir ah yeeshaan daraawiishta iyo dadka reer Marko. si taasi loo fuliyana waxa uu Talyaanigu heshiisyo la saxiixday saldanadihii ka jiray Hoobiyo iyo Caluula oo u dhowaa deegaanada ay daraawiishtu ka dagaalami jirtay. dagaalada dhex marayay Talyaaniga iyo kacdoonka gumaysidiidka ah ee reer Marko ayaa ku fiday deegaano badan oo gobolka Shabeellaha Hoose ah sida Afgooye iyo deegaanka Dhanaane oo u dhow Marka. Talyaaniga oo aad uga awood badnaa dadka deegaanka ayaa 30 sano kadib sanadkii 1924 ku guulaystay inuu meesha ka saaro awooddii dagaal ee dadka deegaanka, wuxuuna xukunkiisa si qasab ah uga hirgeliyey Marko oo uu ka dhigtay xarun uu ka maamulo xeebaha gobollada Shabeellaha Hoose iyo dhulka beeraha ah oo uu ka samaystay dhul beereed uu wax soo saarkiisa dibadda u dhoofiyo. sanadihii xigay 1930 Talyaaniga ayaa qalabayn ku sameeyey dekedda Marka oo waqtigaa ka hor ahayd goob ay doomaha kalluumaysigu ku xirtaan. kadib markii ay meesha ka baxeen doomihii ganacsiga keeni jiray Marka, Talyaaniga ayaa dekeddan u dhisay si uu uga dhoofiyo mooska oo uu si xawli ah waqtigaa ugu beeri jiray degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Talyaaniga ayaa sidoo kale dhisay jid tareen oo fududaynaya in mooska laga soo raro Janaale si toos ahna loo geeyo dekedda Marka oo uu ka dhoofin jiray, wuxuuna dekedda Marka u bixiyey naanaysta ah dekeddii mooska. Talyaaniga ayaa sidoo kale qorsheynayay inuu dhiso jid isku xiri kara degmada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe iyo Marka si uu dalagga beeraha ee Jowhar iyo Shabeellaha Dhexe uu uga dhoofiyo dekedda Marka. waxaa sidoo kale jiray xaafado ka mid ah magaalada oo ay deganaayeen qoysas Talyaani ah. xaaladuhuna waxay gumaysiga Talyaaniga u ahaayeen kuwa si caadi ah ugu socda ilaa laga soo gaaro bilowgii dagaalkii labaad ee dunida, markii ay Talyaaniga ka bilowdeen dagaaladii laga soo horjeeday xukunkii faashistaha ee uu hoggaanka u hayay Benito Mussolini. dagaalada gudaha Talyaaniga ka socday ayaa sababay inay hoos u dhacdo awooddii Talyaanigu ku maamulayay maxmiyadihii hoos imaanayay. sidoo kale markii Talyaaniga lagu jabiyey dagaalkii labaad ee adduunka waxaa hoos u dhacay saamayntii uu ku lahaa suuqyada Yurub. sidoo kale waxaa yaraaday dalagii uu ka dhoofin jiray dekedda Marka. sidaasi ayayna dekedda Marka ku noqotay mid dhaqaaqeedii uu yaraado. markii xorriyadda la qaatay sanadkii 1960 Marka waxay ka mid ahayd degmooyinka gobolka Banaadir oo waqtigaa ka koobnaa Banaadir iyo labada Shabeelle. sanadkii 1984 markii la ballaarinayay gobollada dalka Shabeellaha Hoose waxaa laga jaray gobolka Banaadir, wuxuuna noqday gobol cusub oo ay xaruntiisu tahay degmada Marka. sidaasi ayayna ilaa maanta Marka u tahay magaalada ugu muhiimsan, gobolka ugu wax soo saarka badan dalka xagga beeraha. markii dagaalada sokeeye ay dalka ka bilowdeen, degmada Marka waxay noqotay goobaha loolanka adag loo galay sidii ay kooxaha kala duwan gacanta ugu dhigi lahaayeen. maamullo kala duwan oo marba koox ay qabsanaysay ayay magaaladu nasiib darro u heshay. xilliyo badan ayaana shacabka magaalada lagu dul dagaalamay. Marko waa magaalo xeebeed cimilo degan leh, aadna u soo jiidata dadka booqda. saraha cadcad ee magaalada ayaa siiyey naanaysta ay caanka ku tahay ee Marka Cadday. inkastoo ay tahay magaalo yar, dhismooyinka badankood waa kuwo qadiimi ah. degmada Marka waxay leedahay xaafado ay ka mid yihiin Howlwadaag oo sidoo kale loo yaqaano xaafadda Saraha, xaafadda Horseed oo dadka reer Marko ay u yaqaaneen Buulajaan, Wadajir, Bayturaas ama xaafadda Carabta, xaafadda Ruushka iyo xaafadda Awbaale. magaalada Marka waxay leedahay masaajido aad u tiro badan oo qaarkood ay yihiin kuwo qadiimi ah oo la dhisay waqtiyo aad u fog.